tobanka xabsi ee adduunka ugu xun. xabsiga ama jeelku waa goobaha lagu marsiiyo ciqaabta dembiilayaasha laguna hakiyo ee lagu hayo eedaysanayaasha inta la maxkamadaynayo ee eedahoodaasi ay dhan u dhacayaan. adduunkuna wuu ku kala ba'an yahay dhanka xabsiyada iyo la dhaqanka maxaabiista xidhxidhan. nimcada aynu deegaanadeenna iyo dowladaheenna ku qabno ee aynaan dhaadanayno waxaynu ogaanaynaa marka aynu ka war hello wacaalaha agagaarkeenna ka jira iyo dhibaabaha ka oogan. halkanna waxaannu idinku soo gudbinaynaa tobanka xabsi ee adduunka ugu xun uguna dhibta iyo kadeedka badan maxaabiistuna ay dadnimada ka tagaan ee dugaagga noqdaan. xabsiga huweryong magaciisa rasmiga ahi waa kuwaan liisoor lambar 22. waa xabsiga koowaad ee ugu ba'an. waxa uu ku yaallaa kuuriyada waqooyi. sidaynu wada ognahayna kuuriyada waqooyi waa waddamada adduunka ugu nidaamka adag ee ugu digtaatoorsan madaxweynaheeduna waa kalitalis. xabsiganina waxa uu u gaar yahay dadka arrimaha siyaasadeed u xidhan. maxaabiistuna waxa ay ku noqdaan xabsigaa dhexdiisa dugaag oo dadnimada way ka tagaan. taasna waxaa sababaya askarta ay jeeshaa ee xabsiga ilaalaysa oo aadaminimada ka fog dadkana ula dhaqma si aanay nafina xamili karayn, iyo xabsiga oo gebi ahaanba ka go'doonsan deegaanka dibadda ayna ku xeeran yihiin buuro dherarkoodu uu gaadhayo 1500 oo fiit, taas oo quus ku ridaysa qofka xataa rajo kale inuu mar uun helo jaanis uu kaga baxsado. waxaa la aasaasay jeelkan 1965kii waxa uuna noqday kuwa ugu mudan xabsiyada ugu xun caalamka waayahan dambe. xabsigan wax xog sii ridan ah lagama haynin maadaama aanay kuuriyada waqooyi si rasmi ah uga shaqayn warbaahinta iyo internetku. waxaana arrimihiisa daafayday mid ka mida ilaalada xabsiga oo ka goostay ciidanka waddanka una baxsaday Shiinaha wixii uu wariyo wacaalka hayeyna baahiyey. waxaana xabsigaas sirihiisa la helay 2012kii. qaababka loogu cadibo xabsigaas maxaabiistana waxaa ka mid ah in maxbuuska foosto weyn oo biyo ah lagu dhex rido, biyahaasna ay gaadhaan daloolka sankiisu meel uu ka fiiqsan karo, sidaasna uu u taagnaado muddo 24 saacadood ah. in iyaga oo maxaabiistu qaaqaawan saqafka sare laga soo laalaadiyo saacado badanna ay saa u soo laalaadaan. waxaa kale oo ka mid ah in maxbuuska ruugaga lagu fadhiisiiyo kadibna xaglaha qori adag lagaga tigtigo si uu habdhiska dhiig wareegiisu u istaago, taasina ay sababto inuu ruuxaasi curyaamo ama socodka gabo amaba uu dhinto. xabsigan intii la dhisay waxa galay oo lagu xidhay 50,000 oo maxbuus. waxa uu ku noqday xabsiga adduunka ugu xumina waa in ruuxa galaa aanu ka soo bixin, haddii uu ka soo baxana ay nolosha geeridu u dhaanto aramida ku maqan iyo dhibaabaha la soo markiyey awgeed. ruuxa lagu xidhana ehelkiisa oo dhan waa lala xidhaa si ay looma ooyaan u noqdaan. markii la doonana tijaabooyin caafimaad ayaa sida jiirka lagu fuliyaa. xabsiga tudmur waxa uu ku yaallaa waddanka Suuriya. waxa la dhisay 1966kii. marka xabsiyada adduunka ugu xun la tirinayana isaga waxaa u raacday in xumaanta loogu sii daro inuu yahay kawaanka dilwadareedka. ilaa muddadii la dhisay waxaa ka dhacay xabsigaas dhexdiisa dilal wadareed aad u badan oo aan loo turayn maxaabiista ee sarfayn laga saarayo. waxaana ugu caansan kii dhacay 1980kii oo dhegta dhiigga loo daray 600 ilaa 1200 oo ah ikhwaanulmuslimiin, iyo sidoo kale dilwadareed 120 haween ah hal mar qoorta loogu dheereeyey. xabsigaa ruuxa galaana waa sida uu u galay oo ehelkiisu way ka samraan oo ka quustaan. waayahan dambena loolanka Suuriya ku dhex maraya Daacish iyo dowladda Suuriya ayaa sababay inay ururka Daacish xabsigaa burburiyaan oo dhulka la simaan. Las Bonitas waa xabsi ku yaalla Venezuela. waddanka Venezuela waxaa lagu tiriyaa waddamada ay xabsiyadoodu adduunka ugu ba'an yihiin, haddana waxaa xabsiyadeeda ugu nolol xun oo ugu ba'an xabsigan Las Bonitas. ceebaha ugu waaweyn ee uu xabsigani leeyahayna waa iskooxaysiga cunsuriyadeed ama haybsooca ka dhex oogan oo kooxahaas maxaabiista ah ee ku dhex loolamaya wax kasta oo niyaddooda ku soo dhacaba way sameeyaan. xabsiga deerkiisa gudahana iyaga ayaa ka taliya, askartuna dusha ayuunbay ka ilaalisaa oo wixii ku ba'aya iyo wixii ku basaya midna faraha lama soo gasho. sidoo kale maadaama ay xabsigan ku badan yihiin maxaabiistu waxa mar walba ka dilaaca safmar saamayn daran geysta. waxaana uu cudurka daacuunka oo dhowaan ku dhuftay hal mara ka takhallusay
700 oo maxbuus. sidoo kale maxaabiista badani waxa ay horseedeen in 150kii maxbuusba uu korjoogteeyo hal askari, taasina ay sababtay in alaabo korjoogaha ay dilaan baxsina isku dayaan. maxbuuska wax lagu tuhmana toogasho ayaa lagu dilaa. xabsiga Carandiru waa xabsi ku yaalla waddanka Brazil, waxaana la dhisay qaybtii dambe ee qarnigii 20aad. waa xabsiga ugu weyn Ameerikada Koonfureed, waxaana aad ugu dhex faafa xabsiga cudurka AIDS-ka oo ay sababto kufsiga maxaabiista ka dhex dhaca iyo daroogada sida aan xadka lahayn loogu isticmaalo dhexdiisu. dhacdooyinka xabsigan ka dhex dhacayna waxaa ka mid ah in 1992kii ay maxaabiistu ku gadooday askarta, taasina ay sababtay dhimashada 111 maxbuus oo la toogtay. hay-adaha xuquuqul insaanka sheegtaana ay faraha la galeen oo baadheen arrinkaas. aakhirkiina taliyihii ay jeesha dilka geystay waxaa lagu xukumay xukun adduun weynuhuba uu la yaabay oo ah 632 sannadood oo xadhig ah. balse muddo kadib xukunka waa la laalay, isaga oo loo aanaynayo inuu tariska sare ka qaatay amarka. markii sidaa loo soo daayeyna waxa uu dhameeyey dad aan la garanayn oo ah maxaabiista dhimatay qaraabadeedii. xabsigaasna markii uu warkiisii dheeraaday 2002 ayaa si kama dambays ah loo xulay oo albaabada loogu laabay. xabsiga Camp 1391 waxa uu ku yaalaa dhulka Falastiin ee Yuhuuddu gumaysato. waxa uu u gaar yahay dadyowga gala dambiyada lagama soo kabtaanka ee ka dhanka dowladdaas Yuhuudda. xabsiganina waxa uu ahaa mid daahsoon oo xataa aanay shacabka Yuhuuddu war iyo wacaaltoona ka hayn, waxaana ay ka war heleen 2003. dadka ka buuxana badankoodu waa muslimiin Falastiiniyiin ah, waxaana dadka loola dhaqmaa si kasta oo xun oo bini'aadmi loola dhaqmo. xabsiga Vladimir waxa uu ku yaalaa waddanka Ruushka, waxaa la dhisay 1783kii. waxa uu 100 mayl ka durugsan yahay magaalada caasimadda ee Moscow, waxaana caanka ka dhigay maadaama lagu xidhxidhi jiray siyaasiyiinta mucaaridka. waayihii midowgii Soofiyeedkana aad ayay u adeegsan jireen Lenin iyo Stalin iyo raggii xilalka uga dambeeyey. siyaasiyiinta mucaaradka ee loo taxaabana badankooda waa lagu dhex dili jiray. dadka lagu xidhana waxaa muddada xukunkooda ugu yar 20 sannadood. waana xabsiga ugu weyn uguna ilaalada adag Ruushka. xabsigaasina ilaa hadda waa xabsiga ugu sumcadda xun Ruushka ee ay dadkaasi ka ducaystaan. xabsiga Stanley waxa uu ku yaalaa magaalada Hong Kong, waxaana la dhisay 1937kii. waxaana lagu xidhi jiray dadka ku xukuman dilalka ee daldalaadda sugaya intii ka horreysay 1990kii ee aanay xukuumaddaasi laalin xukunka dilka ah. waayihii uu Jabaanku deegaanka gumaysiga ku qabsadayna waxa uu ku cadaabi jiray dadka ku mucaarada ee ka soo horjeesta maamulkiisa, waana xabsiyada ugu cadaabista xun caalamka. xabsiga Folsom waxa uu ku yaalaa waddanka Maraykanka, waxa uu ka dhisan yahay ismaamulka California. waa xabsiyada ugu ilaalada adag Maraykanka iyo caalamkaba. baaxaddiisu waxa ay qaadaa 2500 oo maxbuus, haddana waxaa ku xidhan in ka badan 3000 oo maxbuus. waxaana uu galay liiska xabsiyada caalamka ugu ba'an 70aadkii ilaa 80aadkii oo ay ka dilaaceen cudurro dilaayo ah iyo isbahaysi kooxaysan oo ay maxaabiistu isu leynayso. inkasta oo isku dayo badan oo lagaga baxsanayo xabsigani ay fashilmeen, haddana waxaa si kaartaysan oo go'aan iyo raganimo leh uga baxsaday 3 ruux oo sumcaddii xabsigaas dhaawac ba'an u geystay. xabsigaasna dilalku si joogto ah ayay uga dhacaan. xabsiga Mendoza waa xabsi ku yaalla waddanka Argentina. xabsigani intii uu qaadayay 3 laabkii ayaa ku xidhan. qolka yar ee 40 mitir ah waxa uu hoyda 5 maxbuus oo mararka qaar sira joogga ku seexda. lama ogolo inay maydhaan, mana laha musqulo. cudurraduna si joogto ah ayay ugu baahaan. waana xabsiyada adduunka ugu xun uguna hagardaamada badan. ilaaladiisuna aadaminimada way ka caydhoobeen oo dugaag badhaxla ayay isu beddeleen. xabsiga San Pedro waa xabsi ku yaalla Bolivia. waa xabsi noociisa dhan loo saaro ilaa hadda la garan la'yahay. waxaa daroogada dhexdiisa loogaga ganacsadaa si caadi ah. maxaabiistu eheladooda iyo xaasaskooda ayay la degaan xabsiga oo u yeedhaan. lacagta ugu badan ee ka soo xirota xabsigaasna waa dilalka oo lacag la isku siiyo inuu maxbuus kale qudha ka soo jaro. waxaa ku xidhan 1500 oo maxbuus,
waxyaabaha uu ku noqday xabsiga adduunka ugu xunna waxaa ka mid ah in maxaabiistaas ay ku jiraan kuwo qabqablayaal ah oo ah madaxdooda daroogadana ka ganacsada qolaalkoodana waxaa loogu diyaariyaa wax kasta oo ay guryahoodiiba ka heli jireen ba'naanta iyo dugaagnimada xabsigaas ka ooganna looma tiirinayo dowladda iyo askarta ee waa maxaabiista ku xidhan dhexdooda iyo tacadiyaad ay isu geysanayaan daawade kuwani waa 10 xabsi ee adduunka ugu xun uguna saamaynta badan deegaanada Soomaaliyeedna wax xabsiyada u dhigmaa kama jiraan waana mahad alle maadaama uu inagu beeray qalbi aadaminimo leh oo aan maxaabiistiisa sidaa ula dhaqmayni dhan kale haddii aynu iska taagno nimcada aan la soo koobi karin ee madax bannaanida iyo xorriyadda sii daysan ah waa inaan ilaahay ku mahadinnaa inta aynu wakhtigaa iyo madax bannaanidaa haysanana ka faa'iidaysanaa